marka aad eegto muuqaalkan ku hor yaala ma jiro wax weyn oo ku muuqda oo uu uga duwan yahay muuqaalada la midka ah oo ay duubaan CCTV kaamirooyinka ku xiran dhismayaal badan oo caalamka ku yaala waxaad aragtaa oo kaliya 3 gabdhood oo ka yimi banaanka iskana faraxsan markana sugaya wiishkay geyn lahaa dhanka iyo qololkooda si marka ay u nastaan lagana yaabee in ay ka sheekaysanayaan waxyaabihii ay beritoole qaban lahaayeen balse tanaxdinta badan ayaa ah in mid ka mid ah gabdhahan Christy aysan ka warhayn in saacadan ay tahay saacadii ugu dambeysay ee nolosheeda muddo yar kadib muuqaalkan ay ku dhici doonto dhacdo ilaa maanta aan la xirin feelkeeda ugu horeen haddii aan wax yar ka taabto taariikhda gabadhan Christy waxay ku dhalatay caasimadda dalka Scotland sanadii 1989 nasiib wanaag wuxuu calafku isku daray oo ay iskuursadeen jacaylkii nolosheeda wiil lagu magacaabo Adam Maxwell bishii September 2016 hamigooda ugu weyna wuxuu ahaa in sanadda 2017 gudaheeda ay iibsadaan guri ay kaga miri dhaliyaan jacaylkoodii xilligan Christy waxay u shaqeynaysay bangiga Lloyds Banking Group ee caasimadda Scotland ku yeelay si guud marka aad nolosheeda u eegtana wax waliba way isugu toosnaayeen oo ma jirin nolol midan ka fiican oo ay ku hamiyaan ilaa hal maalin ay waxaana oo dhan isoo rogaan bishii Abriil ee 2017 Christy iyo 19 gabdho oo saaxiibadeeda ah ayaa dalka Spain qaasatan magaalada Benidorm waxay u tageen hen weekend dalxiis toddobaadla ah oo inta badan gabadh markaas la guursan raba iyo asxaabteeda ay aadaan si farxad ay ula qaybsadaan caruusada cusub waana dalxiis dumarka oo kaliya loo ogol yahay oo wax rag ah aysan raacaynin Christy waxay dalxiiskan u raacday mid kamid ah asxaabteeda oo markaa aroos isku diyaarinaysay magaaladan ay dalxiiska ku tageenna Benidorm ayaa ah magaalo xeebeed aad u qurux badan waana magaalo dalxiiska caanka ku ah oo habeen iyo maalin si isku mid ah u shidan markii ay halka tageen waxay dhamaantoodaba apartmentiyo ka ijaarteen dhismaha Bayma Apartments Christy iyo 2 gabdhood oo groupka kamid ah ayaa iyagu wada ijaartay apartment ku yeelay floorka 9aad ee apartment 9A habeenkii marka la gaarayna dhammaan gabdhihii waxay isla soo aadeen maqaayado ku yeelay English Quarter xaafad yar oo dalxiisayaasha ka soo jeeda dalka Ingiriiska ay caanka ku ahaayeen misna ay ku yaalaan maqaayado hoteelo iyo wax walba oo dalxiiste uu u baahan karo habeenkii oo dhan halka ay isaga soo caweynayeen ilaa laga gaaro aroortii hore xilliga ay inaga inoo tahay salaada subax iyo agaaraheeda marka oo ay dib ugu soo noqdeen apartmentigoodii CCTV-ga apartmentiga ayaana duubtay ayagoo 11:35 daqiiqo dib ugu soo noqonaya apartmentigoodii misna sugaya elevatorka sidiina apartmentigoodii ku aaday haddii aad eegto saacadda muuqaalka kaaga muuqata waa 10 saac iyo 35 daqiiqo balse sida shaqaalihii hoteelka ay cadeeyeen 1 saac ayay ka dambaysaa saacadda saxda ah muddo yar kadib marka ay ka soo wareegatay xilligii ay gabdhihii aadayeen apartmentigoodii ayaa mid ka mid ah gabdhihii la socotay Christy waxay dib ugu soo laabatay wiishkii ayadoo sida ay sheegtay maqashay hadallada codka qaar ka mid ah asxaabteeda misna ay fiirinaysay haddii gabdhihii kale ay dib u soo laabteen iyo haddii kale waxaa kaloo la helay muuqaal ay gabdhihii mid ka mid ah ka duubtay Christy oo hurda muddo saacad iyo xoogaha marka laga joogo xilligii ay dib ugu soo laabteen apartmentigoodii wax sida u badan ba kama soo wareegan xilligii gabadhan ay muuqaalka ka duubaysay Christy oo Christy ayaa inta ay hurdadii ka soo kacday hal goor waxay ka baxday apartmentigii ay degneed lama oga sababka ay u baxday iyo waxa ay banaanka ka doontay balse sida reerkeeda iyo dadka qaar ka ba ay aaminsanayeen Christy ayaa dib ugu soo laaban doonta apartmentigii mar kale balse markan albaabkii wuu xirnaa yaa xiray maxaa loo xiray cid kama jawaabin su'aalahaasi saadarteed haddii albaabkii uu ka xirnaa waxay aaday gabdhihii kale ee asxaabteeda ahaa qaar ka mid ah oo iyagu degnaa floorka iyaga ka sareeya ee floorka 10aad si nasiib darro go'aankii ay qaadatay ee ahaa in ay floorka 10aad aado ayaa noqday kii ugu xumaa ee ay abid qaadato waana halka meesha ay kala kulmi doonto arin reerkeeda oo dhan ka argagixisay abaare 1 saac iyo 50 daqiiqo ee aroortii hore subaxnimo ayaa mid ka mid ah shaqaalihii apartmentiga oo howlihiisii iska wata wuxuu arkay Christy oo ku kala tuuran barxadda lagu caweeyo ee dhismahaasi uu lahaa waxa dhaawac aad u xun uu ka soo gaaray dhammaan jirkeeda qaas ahaan qaybaha gudaha waxaana markiiba la ogaaday in ay ka soo dhacday dabaqii 10aad qaas ahaan halka balkoon ee qaybtaasi ku aadanaa oo ahaa balkoonada apartmentiga 10E ta oo keentay
in ay naf dhulka la gaari weydo. Apartmentiga 10E waxaa degnaa 5 nin oo dhalinyar ah oo iyagu ka soo jeeda dalka Ingiriiska. shantooda waxaa lagu kala magacaabaa Anthony Halehouse, Callum Northbridge, Daniel Bailey, Joseph Graham iyo Ricky Gammon. raggan ayaa iyagu waxay qayb ka ahaayeen koox 50 qofood ka kooban oo ka soo wada jeeda dalka Ingiriiska oo ku sugnaa goobtaasi dalxiis. sida la og yahay, Christie iyo raggan ma ahayn dad macaarifo ah oo iyagu is yaqaana, taa oo shaki hor leh dhalisay. su'aasha ugu muhiimsan ee markan u baahneed in laga jawaabo ayaa ahayd, maxay Christie ka qabanaysay apartmentiga 10E? see ku dhacday in Christie ay raggan apartmentigoodii u gasho? maxaa gabadhan ka soo tuuray balakoonkii? booliiskii dalka Spain oo iyagu kiiska gabadhan gacanta ku dhigay ayaa markiiba waxay soo xireen Joseph Graham oo isagu ahaa qofka aad looga shakiyay in geerida gabadhan uu ku lug leeyahay ama uu yahay kan ka dambeeya. Joseph isagu wuxuu si cad isaga fogeeyay eedayn kasta oo muujinaysa in uu ku lug leeyahay geerida gabadhan. booliiskii ayaana markii ugu horeysay diiradda waxay saareen in ay baaritaan ku sameeyaan ama ay ogaadaan sida Christie ay raggan apartmentigoodii ku tagtay ama ay ku gashay. markii ay Joseph ka wareysteen sida ay ku timid apartmentigoodiina wuxuu sheegay in mar loo sii dhow yahay 2 saac subaxii ay gabadhan u soo gargaraacday albaabkii apartmentigooda, misna uu isaga ka furay albaabkii. xilligaana Joseph, Daniel iyo Ricky waxay ku caawinayeen living roomka, halka labada kale Anthony iyo Callumna ay hurdaayeen. sida ay sheegeen, saddexdii rag ee soo jeeday, Christie waxay u ekeed qof jahwareersan ama yarad luunsan oo kale, misna wax raadinaya. markii albaabkii sida looga furayba, ayada oon hadal dheerba u gelin ayay gudaha u soo gashay apartmentigii, waxayna bilowday in ay apartmentigii gudihiisa fiirfiiriso sida in qof ay ka dhex raadinayso oo kale. sida uu Joseph sheegay, Christie markiiba waxay aaday dhanka iyo suuliga apartmentiga oo jikada agteeda ku yeelay, waxayna isku dayday in ay daaqadii suuliga korto. markan ayayna dood la galeen gabadhii. Anthony oo ahaa mid ka mid ah labadii hurdaysay ayaa isagu wuxuu sheegay in uu ku soo kacay Joseph oo ku qaylinaya, waad qaldan tahay, waxaad ku jirtaa apartmenti qaldan. inta uusan qolkiisa ka soo bixin oo dharkiisa uu xiranayo ayaa haddana wuxuu maqlay isla Joseph oo si naxdin ku jirta ugu qaylinaya, alla, gabadhii way booday, balkoonka ayay ka booday. isagu wuxuu sheegay in marna uusan arkin Christie oo markii uu qolkiisa ka soo baxayay ay ahayd waa ayba meeshii iska tuurtay. baaritaanadii kale ee lagu sameeyay raggan ayaa waxaa lagu soo ogaaday in Joseph uu habeenkii ilaa subaxii maalinkaasi ee dhacdadaasi dhacayso uu qaadanayay xaddi aad u tiro badan oo ah maandooriyaha kokaayinta, midda oo xitaa keentay in uu dhiig badan ka yimaado sankiisa oo ilaa ay subaxaasi ka socday. nasiib darro, baaritaano hor leh kadib, sida ay sheegeen booliiskii, waxay Joseph ku waayeen wax dambi ah, taa oo keentay in ay xabsigii ka sii daayaan 2 maalin kadib dhacdadii. 4tii kalena iyagu si la mid ah dambi baaristii markii ay u dhamaatay waxaa loo ogolaaday in ay iska bixi karaan oo dib ay uga laaban karaan wadankooda, iyagoo sidii ugu soo noqday dalka Ingiriiska. maadaama weli kiiskii gabadhan uu furnaa oo reerkeediina ay ku dadaalayaan si aan loo xirin ilaa xalka kiiskan laga helo, muddo kadib 5tii dhalinyar ayaa mar kale dib ugu soo laabtay dalka Spain, waxayna ahayd go'aankooda oo cid ku qasabtay ma jirin in ay dib u soo laabtaan, iyagoo maxkamadii kiiskan gacanta ku hayay u ogolaaday in ay wax waliba diyaar leeyihiin, su'aal kasta oo maxkamadda ay qabtaana ay ka jawaabi doonaan. almuhim, baaritaano qoto dheer kadib, booliiskii dalka Spain ee kiiskan gacanta ku hayay ayaa markii ugu dambeysay sanadii 2019 kiiskan soo xiray, iyagoo ku tilmaamay geeridii Christie mid accident ah, dhacdo shil ku dhacday, iyagoo sababna uga dhigay maadaama raggan ay ku soo waayeen wax cadeen ah oo loola xiriirin karo. balse arrinkan waxaa jawaab celin adag ka bixiyay reerkii Christie oo iyagu ku eedeeyay qoladii booliiska in aysan si waadix ah u fulin baaritaanadii. waxay sheegeen in raggii booliisku aysan wareysi dambi baaris ka qaadin markhaatiyaal iyo goobjoogayaal muhiim ah, sida gabdhihii Christie saaxiibadeeda ahaa ee qolka la joogay misna muuqaalka ka duubayay. waxay kaloo sheegeen in booliiskii aysan cadeymihii kiiskan si sax ah u aruurin, qaas ahaan muuqaaladii ay duubtay kaamirada CCTV-ga oo qaybo badan ay ka soo tageen, iyagoo soo bandhigay oo keliya qaybo yaryar. taa oo keentay markaa in reerkan ay la heshiiyaan mid ka mid ah dambibaarayaasha ugu caansan galbeedka, David Swindle, nin muddo badan kiisaska noocan oo kale ah gacanta kula jiray, qabiirna ku ah, misna rool muhiim ah ku lahaa in gacanta lagu soo dhigo dilaayaal caan ah sida Peter Tobin oo lagu cadeeyay in uu dilay 48 qofood oo dumar ah. baaritaanadii uu David ku sameeyay kiiska gabadhan wuxuu ku soo ogaaday in ay jiraan nin iyo xaaskiisa oo xilliga degnaa apartmentigaasi, qolkii ay degnaayeen daaqadiisana ayba ku sii jeeday barxadii gabadhan meedkeeda laga helay. lamaanahaasina ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay
horreeyay ee arkay meedkii Christie misna ay iyagu wargeliyeen shaqaalihii apartmentigaasi ee aysan ahayn sida markii hore ay booliiska soo sheegeen oo ahaa in mid ka mid ah shaqaalihii uu subaxii hore arkay. Lamaanayaashan ayaana marna waraysi laga qaadin, dib dambana meel lagu sheego lama helin maadaama iyagu laftirkoodu ay dalxiis ku joogeen halkaasi. David ayaana aaminsanaa in haddii markii ugu horeysay ba ay wax laga weydiin lahaa kiiskan ay wado uun furmi lahayd. haddii aan isla eegno dhacdada gabadhan iyo qaababka ay ku suuragali karto in waxaan oo dhan ay ku dhici karaan, waxaan aaminsanahay in uun laba midkood ay tahay. Marka hore, haddii aan isla sheekadii raggan raacno, waxaa macquul ah in Christie oo raadinaysa apartmentigii gabdhihii kale ee asxaabteeda ahaa ay u soo gargaraacday raggan. Markii ay ka fureen kadibna ay aragtay waxa raggan ay meeshaasi ku sameynayeen. Sida aan horey u soo sheegnayba, ragganna ay xilliga isticmaalayeen muqaadaraad iyo qamri, weliba xaddi aad u badan oo maadada kokaayinta ahna ay meeshaasi ku hayeen. Midaana ay keeni karto in raggan ay ka baqaan in gabadhan ay booliiska wargeliso, taa oo haddii ay dhacdo baxar aad u weyn gelin karta muddo aad u dheer oo xabsi ahna ay ku mutaysan doonaan. Waxaa suuragal ah si midaasi aysan u dhicin in ay keentay in gabadhan ay ka taqallusaan. Haddii aan eegno balakoonada apartmentiga ay raggan degnaayeenna, ma ahan meel uu qof si fudud uga dhici karo. Ugu yaraan waa meel u baahan in qofka uu isaga koro ama laga tuuro, weliba si awood ay ku jirto. Aragtida labaad ee aan isleeyahay waa qaabka ay raggan ku dileen gabadhan ama ay ku dhimatay. Waa in markii hore ay been sheegeen oo iyadu aysan soo gargaraacin albaabkooda. Sababtoo ah haddii aad isweydiiso sidee macquul ku tahay in Christie ay uga warqabi weydo apartmentii nambarka ee ay asxaabteeda degnaayeen oo apartmenti qaldan ay u soo gargaraacday. Waaba dad isla socda, qof kasta iyo meesha uu degan yahayna way isla wadaagayaan, sax? Taa oo haddii ay run noqoto micnaheedu ay tahay in raggan ay Christie ku arkeen hoolka dheer ee dabaqa 10aad, kadibna ay iyagu halkaa ka soo afduubteen apartmentigoodiina ay la soo galeen iyagoo damac kaga gabadhan misna raba in ay farxumeeyaan ama wax lamida. Waana mid laga filan karo raggan maadaama ay ahaayeen rag ayagoo dhan wada sarqaansan misna markaaba muqaadaraad isticmaalayay. Balse markii ay gudaha la soo galeen gabadhii, sidii ay filanayeen aysan u noqon oo gabadhan ay dagaal kala hortimi, taa oo keentay in ay isjiijidaan ilaa heer gabadhan ay si kadis ah uga dhacday balakoonkii. Midan dambe ayaana ila ah mida ugu macquulsan, in gabadhii ay isku dayeen kuligooda ama midkood in uu gacan la galo dagaal iyo isjiijid, kadibna si kadis ah ay uga dhacday balakoonkii. Sababta aan u leeyahay si kadis ahna uga dhacday balakoonka waxay tahay haddii raggan ay rabaan in si ulakac ah ay u dilaan gabadhan, soo ma jiro qaabab kale oo ay ku dili kareen kadibna meydkeedii ay ku qariyaan. Yaa caqligiisa qaba oo hadduu inuu qof dilo rabo kasoo tuuraya balakoonka gurigiisa asagoo og in hadhow ay ku soo laabanayso oo la ogaanayo in meeshaasi laga soo tuuray gabadhan. Markii aad kiiskan dib u eegto, waxaa jira su'aalo aad u badan misna haddana jawaabo la hubo aan laga bixin. Kuwa ugu muhiimsan ee aniga ahaan maskaxdayda aan ka bixin ayaa ah: ugu horeen, waxaa mid isweydiin mudan ah, maxaa marka hore keenay in Christie ay ka baxdo apartmentigeeda? Xitaa haddii ay ka baxday, aaway gabadhii muuqaalka ka duubaysay oo soo jeeday see ku dhacday in ay u arki weyso Christie oo baxaysa? Teeda kale, xitaa haddii ay baxdayba waan dhahno gabadhii jeedayna way seexatay oo ma arag Christie oo baxaysa, markii ay Christie dib ugu soo laabatay maxaa xiray albaabkii apartmentiga? Yaa soo kacay oo arkay Christie oo maqan kadibna ka xiray albaabkii? Ugu dambeyn, away muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinkii ku xirnaa dabaqa 10aad. Muuqaaladaasi waxay lafdhabar u yihiin kiiskan, waana kuwa kala cadeyn lahaa haddii Christie ay iyada albaabka raggan gargaraacday sida iyaga sheegeen, ama in ay iyagu gabadhan soo afduubteen oo gurigoodii ay la soo galeen. Si kastoo ay ahaataaba, ilaa hadeer reerkii Christie kama rajo dhigin in mar un ay soo shacbixi doonto runta dhabta ah iyo xaqiiqda sida ay wax u dhaceen. Waana kuwa si joogto ah ugu dadaalaya in maxkamadaha Scotland iyo dalka Ingiriiskaba ay kiiskan dhankooda ka furaan, maadaama cidda dhibka geysatay ama looga shakisan yahay in ay geysteen iyo qofka ay ku dhacdayba ay halkaa ka soo jeedaan. Waxaan rajaynayaa in aad muuqaalkan la dhacday. Haddii aad muuqaalada noocan oo kale ah ka hesho daawashadooda, ku dhufo muuqaalkan ku hor yaala. Waa hubaal isna aad ayuu ku cajib gelin doonaa. Halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalkan. Waa inoo muuqaalka kan xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.